anaga waa cagsi gabdhahan iyagoo yar xijaabka loo xiraa markay weynaato dugsi sare ka baxdo oo da 20 soo gaarto dharkii way tuurtaa dharku waa kala qaybsan yihiin dhar banaanka lagu aado oo rag la isaga asturo dhar guriga lagu joogo oo dadka maxaarimtaada adeerada iyo abtiyaasha ay guriga kula jooga xiranayso dhar ninka ku qabo oo xiranayso la isku qurxiyo gurigeeda marka joogto dhar qurxan ma xiranayso laakiin aroosumkeeda dhar qurxan ay xiranayso عبور قاري عبايد قادي حجابك هو جنوي هنان كدر كنوي همل شرفتنوي إله بنا وإن سلام يا تدمان ذكر ما يدوسي سرمية مسا دوسي سرقوانا دوسي دحى صح وحكى هذا أنا ما تورك كشنطة الحجاب سر الجمال sidaana u qurux badannahay oo sidaana u qurux badan tihiin markii iskoolka uu dhamaado maxaa dharka loo tuuraa gabdhuhu maxay dharka u tuuraan oo qamaar yariis oo tinti meeshaan ay ka muuqato tinti galaankeeda loo jeedaa oo maxay ahayd ahamul awraadki maxaa loo tuuraa maxaa dharka la isaga dhigaa ma quruxa loo arkay markii la yaryar yahay waalidka gacantiisa lagu jiro oo waxbarashada lagu jiro saanay gabadha u labisan tahay u xishood badan tahay oo asturan tahay marka weynaad maxaa dharka u tuuray maxaa dharka la isaga tuuraa carabtu inaga duwinana gabadha inta yarta dhawaaqaawanta dhar looma xiro sarwaal ay gashiin maxay tinta u feedan tahay maalintay qaan gaarto xayd ku yimaado yaa xijaab loo xiro guriga way joogtaa inay baxda looma ogolo ilaa laga guursado laga guursaday hooyo ka noqoto xaas ka noqoto anaga waa cagsi gabdhahan iyagoo yar xijaabka loo xiraa markay weynaato dugsi sare ka baxdo oo da 20 soo gaarto dharkii way tuurtaa cabaayad hore ka furan sarwaal bas ay wato dharku waa kala qaybsan yihiin dhar banaanka lagu aado oo rag la isaga asturo dhar guriga lagu joogo oo dadka maxaarimtaada adeerada iyo abtiyaasha ay guriga kula jooga xiranayso dhar ninka ku qabo oo xiranayso la isku qurxiyo وأنا برتا إن شاء الله تعالى مركب بريحة نقطة ما ملابس الخفيفة اللي هذا تجاني وحس مكفى من نقطة برناس إن شاء الله سلا سألك كل قيبسين دار مركي ما قال لا هذا نقول بيستارسي دي حفلة هذا لو هذا مركب لكن قبلها نحوا سيد حقدم ورجع مركب جوكت دار قرحان محرناس لكن الرسم كذا دار قرحان حرنه عبور قاري عبايد قادي مركب الحجاب سر الجمال أمانتك هذا حجابك وقروح هذا حجابك وقروح هذا وجمالك هذا إن هذا نشاط إلهي سيد قصرات كوجي واجبي يؤسن كوجي واجبي إلهي محمد يا أيها النبي نجعل عمر بن الخطاب أيضا في صدق يا رسول الله عمر هذا ركحني ركفي عبو أقول هذا يسوق جلايان قبل هذا ما حسسك هذا ما استرت ذا أيضا حجابك صدق قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن من جلابيبهن درك إن الله ديان درك أسترن وحجابك شروط علماء أسميان شروط أسميان أو واحد جواد جرك هذا أستراي كو إنه واسع هاي ودرك جرك هذا كل كلام إنه سعرير إهان إنه درك رجوا أكان درك قارض أكان إنه خفيف إهان شفاف جرك كل جاش در دادنا دبيش أساس بوتينس إنه سنهان وهذا ما أنت لحد سما عبايد ما أنت كسر دبادة عبايد أنت كتير عشان وحيسينا ظالم واحد gabdhaha carruurda banaanka in maxay soo dhigo u talagalay dadkaas oo kale dharka qaawan xijaabka inta ka furan orbinka gabadha carruurdeeda banaanka imaanaysa sarwaalkeeda loo jeeda aan shaxmo hadda sarwaal baa nagu soo biiro qurba joogto waxyaabaha ay keenan Nairobi ku arkana gabar sarwaal wadato ma jira anaga waqtigan waqtigan ceeb ah baaba la garaac jiray xana lagu tuuri jiray hadda inay sarwaal soo qaato sida gabdhihi ajaanibta kale inta ay xirato qamaar yariis ay sarwaal marka oo caadi u noqdo la khalad sarwaal dharka hoos ku jira malaabis daaqili waa dharka hoos xawiyaadka ay qaadan jireen oo astana oo dharka hoos ku jira muusha dharka banaanka la aadan marka jamaalka saxda waxa waaye gabadha inay jirkeeda qariso faa'iido kugu jirta maxaa dharka inay qariso marka faa'iido kugu jirta maxay tahay dharka jirkeeda inay qariso faa'iido kugu jirta waa nanac la cunay oo la faydan oo taqsiga tutaabana iyo nanac xiran kala gadana kan xiran la gadana sama sidaas oo kale gabadha asturan baa la jecel nin gabar qaawan raba ma jiro maalinta jirkaada banaanka soo dhigto maalinta qiimo beesha gabar macallimada isaanka subax soo istaagtay waxay tar muxaadara maanta waxay ku saabsan tahay hal kelimo bas kuni calkatan ghayra macluuka wala takuni calkatan macluuka maxaa laga wadaa ha noqonin afka carabi sheeg
هنقول حنجة لا عني نقول حنجة أنا لا عني سما هنقول جور في إذا نسق قوانا بيلا سيدنا عبنا كي يلدقسيه في الفولة كلامه الحجاب والحياة معا جود محل ربا الحجاب والحياة معا أسترنان إيوه حشات وأستانت جور لو يقان إلى مكو أمانة جور موسى محل لهاي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وماشي قرآن وكل شيء حشاتك إنه دمرك مهم وياهي حشاتك ما أنا كأنه أخلاق ونفسه كمية والمرأة أولى gabadhana in xishooto oo ragga ka xishooto oo muhiim u siiyaa markii hadana ee binti siita gabar siita hadana waa astaanta lagu doorto fajaad markay ariga u raacay oo ariga biyaha u dhaamiyay laba shay gabadhi ninka ku aragtay wayba markiiba maxay tahay go'aan waxay ku gaartay inuu ninkan gurigooda soo galo fajaad marka Muuse inuu gabadhaas guursaday ka shaqeeyay gabadha ka shaqeysama maxay ku aragtay لا وصف يكون لا وصف محاول القوي يا أبت اسمك أري راعستي سيد بسطو حيتري يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وحل كريس قف آمن سيكو قاتنو آمين هاي سيكو قاتنو نحوق بدنيا يا إيش يكره سيكو قاتل هل كاسمر كليه واركت سيكو قرت بني كان نوكر يقول سوق العدها كم النقطة محي أودا هذا قول النبي موسى نبي شعيب ولا صوت محي تاي هاي قبل دكتور سنة محا جوداس يقولوا هذا إن الخير من استأجرته سيكون قات إنه قوي هاي سيكون قات إنه آمية تاسوا أمانة أريج يدان أريج ودي بديه حلا هالرعد أريج ودي حلا ودي بدن حكوا كبود بودا حكوا بودا أريج دان كل جسنتو أروري ورابي هل كاسم حكوا قات إنه هاي نين حوق لسما سترانجي إنه يا maxay kale ku ogaatay inuu aamin yahay ari biya idin dhaamiye halkaan ana qaadana jeebka ibrid Muuse dheen tuug Muuse noqon halka inuu aamin yahay waxay ku ogaatay arigii ee heesteenka Muuse kun guriyeenin laba arigi waa wada dhaamiye saddex nimankan ka gabar jaaris ku helaan farahu la soo galaa waa soo kun guriyaa sama eedana Muuse sameen farayga wuxuu yiri ara ku horsoconaa gadaal iyo haguudha marka taas maxay ku ogaatay inuu nin aaminay oo qoyska la dhexkamkada markaas aabihiina marka u dan sheegtay marka duruufta haysay inii uriidu yiri marka awoodeed in aan unkixka ihdabnatay haateen ala an ta'jurani 8 sidee sana ay shaqeeyo dhahay gabadhayga midkoodan ku siinaya aabaha waa ku bixin kara ogow yaa soo kula tashan mala socota haduu u arko qofkaas inuu munaasib u yahay haduu u arko inuu qof inta u keento maxay qofka munaasibkan ka ceeriyan waa ina aqbashaa ha ka dhuuman familkiina ha ka cararin familkiina taas hada mawduucaas kama hadlayno ما لا فهمه هذه حتى أقول لك ظلمية أما أكو بهدل أنت وإسكت على مركز قارقط فميلاد قارس كده بديهين مركز ده أقول لك عرفت من الليبانيس مركز قف وناكسن وثاري اللي عليه هي جورس مركز وقت جور كذا الجار إن شاء الله تعالى وكسونا ونسيدنا موسى قبل أسوء إلهي وكانه قبل أيضا ما رأست النبي شعيب أيضا ما رأسته ما إلهي كو أورو كو أجيه وقت جورسنا يسو وقت قفك مناسب كوجوه يردو كذا سجلايا هذا يالله مركز حياة أخلاق الوصول حدا قبلش تقول جالس جور في عنا جبته حلال هذا كويس جالس جور في عنا جبته الله فرط الوصول فيه قف كذا وكوء إيمانا إن شاء الله تعالى هذا دقيق مركز إن شاء الله جور جا كعرض والد كعرض قف هنقول أسترانت أخلاق الحجاب والحياة كل ده حجابكم هو فائدة كلها يا مركز عزة شرف كله عزة شرف كله وهو احترام ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا الله عيال سوق كوما ديبا كوما سو ديرنا انو غعنت كلا سؤال او كو هلايا maxay ahayd ixtiraam dadka dhexdiisa in lagu ixtiraam oo maxay ahayd aad noqoto qof xushmad leh gabadhan jirkeeda way asturatay meel oo dinka laga guriyay maxay ahayd ma yeelays quruxdaada wuxuu sii dhisaya oo jamaalkaadi uu jamaalku daraya quruxdaada qurux kale kugu daraya marka shakhsiya qawiyo ka dhigaya waaciya waxay tahay hataa marka xijaabka wata xijaabka hoosiisa qof jaahil oo xijaabka iska watan ha noqon qof aqoon xijaabka isku wata qof waaciya soo jeeda maxaa sababta uu asturta gabadha maxaa waay in ilaahay uu amray inuu ilaahay amray marka faa'iidada helis maxaa waay inaan lagu dhibin inaan lagu saxdo jidka marayso hada baabuurka raacayso hada suuq ka adeeganayso hada dukaan inay ragga ku xushmeeyaan aysan kugu soo dhiiran ee gacanta kula soo aadin marka lamsa iimaaniya حجابك maxaa faa'iido ka helaysaa iimaan sida salaad lagu waajibiyo xijaabkana lagu waajibi
maxaa kaloo waxay hayta amar ilaahi waa xijaabka yaa qul li azwaajika wa banaatika زي المؤمنين يدنين إن رارعيان عليهن من جلابيبهن أسترات أجر كذا قريان مركا حجابك مركو حواية أستان إسلام وأنا ميلها مسلمين تلقى دقالمي ميلها مسلمين تلقى دقالمي قبلت ممكن نقول إسلام سوي رايم بقول كنت سنكر صبرا كو هاد حجاب المرأة المسلمة تحرير وحده دبك دن مسألة كذا عاد وحده هاتو مريم ما قش تحرير المرأة ميدان تحرير المرأة ما قش شيء hal subax waxa la islaamku waa idin dulmay waxaan idin ku raray dharkan culayska badan oo idin saaray maxay tahay kan u disiya marka iska dhiga soo gal suuqa shaqada soo gal marka hada maanta waxa ku dhacay marka burbur qoysa ku dhacay al mar'atu sani'atu rijal hooyadu waa gabadhu waa mid soo saarta ragga soo saarta marka halkaas ka burburiyeen muslimiinta ka burburiyeen oo marka gabadhi ay shaashada ka soo muuqato iyadoo madax qaawan iyadoo qoorteeda muuqato marka hore qibaar malaabis daaqili ah jooniya yarka hoos laga xirnaa dharka hoos laga qaato ah hada kor mumkin waa dana soo qafiif dana si ahad hadoo soo culus yahay taqaad waxay ahaan marka asturaad ku dadaala jirkiina astura ogsoonow inaad sidaana ciise ku leedahay sidaana dayman ku tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kugu talagalay ha iska tuurin dharka markaad weynaato oo marka asleeda waalidka gacantiisa ka baxday waalidka gacantiisa ka baxay adaa hooyo noqonaysa waalid noqonaysa waa inaad dharkaada ku asturnaata jaamacada sidaan ku imo ha iska tuurin dharka ma fahanteen ya akhwaat ya banaat marka xijaabku marka waxa waaye waa ilaahay baa noo dooray sidoo salaada noogu dooray cibaadada noogu dooray inaad ku sugnaataan al xijaab wal hayaa inay wada socdaan jamaalkiina quruxdiina sidaan ku jira marka bari iskuulka dhameeyay ama jaamacadda gaarto yaa la arkay cabaayad ore ka furan qaawna sarwaalkiina u muuqdo sax miya sax ma aan shaxba in sarwaalkaadi oo hore ka furan la arko oo waliba TikTok la soo dhigay maxay ahayd leeyahay ku soo dhawaada cabaayadaha gabdhaha ka soo aluudo daalim waa nin fiican ma ayadoo xiran ha ka gado ayadoo xiran oo qurxan ha ka gado laakiin ayadoo furan oo qaawan maxaa ku dhibay sarwaalka dii loo jeedo malaabis daaqili dharkana ha ku kala socdaanaan dharkana ha ku kala socnaadaan dar aad maxay ahayd magaalada ku aadayso oo ku asturayo oo waxbarashada ku aadayso oo shaqada ku aadayso oo suuq ku aadayso waa xijaabka weyn dadka kale meeqa qofooda ka xijaabinay maxaarimtaada adeerka aftiga maxay ahayd walaalka kaas kooyatihiin kaas koobatihiin kaas kooyis koobatihiin maxay ahayd ilmaha aftiga awowga inta wada ka xijaabinay dadka kale laga xijaabanayo laakiin anaga wadana aan ka xijaabin ilmaha adeerka ma xijaabana soo la xijaabana waa laga xijaabana laakiin ma ka xijaabana gudhiisa ma laga xijaabto hatta waa la iska salaama sama ilma adeer labaadka ilma abtiga ilma eedada kulli wax waa laga xijaabanayo kulli waa la xijaabanayo waxyaabaha xataa quraanka waxay tahay qadul basar hatta la tadkhulu buyutan ghayr gabadha asturada oo keenay markii la weynaa dad waxa Soomaalida isla nool waay guulka adeerka dhalaa guriga ku nool laga yaabaa wiilkeeda dhashay wiil abtiga dhalo kula nool yahay waa ina ala xuduud sharciya kala joogtaan aadu waqti guriga soo galaya waa ina iska asturtaa fitna badan ka dhalatay dadka qaraabada isla nooshihiin kala asturnaada kala dumaashiga kala waxa la nool ninka walaalkiisa la nool ama ninka maxay ahayd nin maadeerihiina la nool hada inuu gabadhu guriga suurtagal xaraam marka dadka muxaarimta aan ahayn isla noo shariicada way diiday ummadaha kale into dhaqankaas ma leh Soomaalidu gaar u yahay gabar gurigeeda la dul saaran yahay ma jirto inta aan ka ogaa oo maxay ahayd ilma adeeri ilma abti ilma eedi anak bas gaarnooya wada qofa gobolada ka imaad awtuulka magaalada qof ma degana qofkii qaraabo yihiin qofkii la siinaado inta waxbarasho ku jiro muddadaas ay duruuf keentay in qofka qoyska la noolaado waa in la kala asturnaada wiilka adeerka dhalay wiilka eedada dhashay waa in iska waqti guri soo galay haduu qadayna haduu cuntayna qol gaar oo inuu leeyahay meel gaar oo ku asturin leeyahay taasna ku dadaal insha Allah taala عفيفنimadiina dhowr sanaantiina ku jirto عفيفnaantiina in guriga aadaab loo la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wa idha sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab xasaskina wuu kala leedahay markuu soo galaa guriga waa inuu ala xuduud shariica ku soo galaa adoo kala daadsan oo qaawan inuu jirkaada arkin laana uu ku geeyo sama ku gursan kara nikaax uu ku qabanaya marka taasna waa in lagu baraarugsanaada marka dadka qaraabada guriyihiin isla nooshihiin oo dan ay keentay in isla noolaataan ilma adeer ilma abti ilma eedo waa ina ala xuduud sharciya haduu waalidka aqoon u lahayn waa ina waalidka idinka bartaan waa ina martaan qofkan maxaarim ma ahan
waa inuu guriga soo gargaraacan ku soo galay waa in qololkiina kala astureeyeen waa in idin kala hatta quraanku wuxuu cabiray maxay nabiga ilmaha amkuru awlaadikum salaatu wa abnaa sab'in wadribuhum hum abnaa 10 wa farriquhum hal dahay fil madaajic sama ilmihiina bara salaada 7 sano markay soo gaaraan 10 sano markay gaaraan ku garaaca gogashana u kala leexiyaan meesha seexanayaan kale yaa la kala leexiyay walabadii walaala sama ilma adeer xagu jooga marka ilma abtiintu jooga marka waa ka sii fogto waxa sanan ikhtilaad bayna rijaal wa nisaa daa'ima fitna ka dhalato ragga iyo dumarku isdhex galo xaraana ka dhalato xaraana in la isoo guriyaa ka dhalato wayna dhacda daa'ima oo abada way dhacda qisas badan waa ka haya marka dadka guriyaha iskula nooshiina iska fiiriya sida shariicada amartay sidaas ku socda haday waalidka jaahiliinka yihiin bara adinka soo adinka lagu baran quraanka macnihiisa hala barto tafsiirkiisa hala barto qofka quraanka haduu barto lafdan oo macnan inxiraaf kuma dhaco lama khaldi karo qofka qof noloshiisa fadhido noqonaa qof mustaqiim oo la qaloocin karo noqonaa القرآن يعلمنا كل شيء قرآن كنا برايا وحول بقى أخلاق القصاب إلى محمك إن بلنتين إن شاء الله تعالى صفنا جربت مسه ما دوي محك دم سووا ذكره مركا إن نقطان العفيفات قبل دورسان أو أخلاق له لا ما أنت در لقطه وحجابك خفيف سو وما أنت بيله نقطة سيدي معلومة ده هذا حنجو لعونه نقولين هي نقطة الباب زينها اسكو فرنا marka in lagu soo hunguriyo dalika adna ay yu'rafna fala yu'din wa ka baxaysa xuduud ilaahi ku ilaaliyo marka waa ka baxaysa marka waxa noqonaysa qof muharramaadka ku dhacdo ilaahi ku wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabil kullu albaab walba fidna oo gabadha ay ku dhacdo ama xaraan ay ku dhacdo kulli jirkeeda banaanka soo dhigtay social media han ku fidnoomin asagana gabar walba markay social media soo muuqanayso jirkeeda meesha ugu muhiimsan soo dhig bandhigaysa meesha isleeda meeshana ka qurxanta iyo banaanka soo dhigaysa haday tinteeda inay jilicsan tahay tinteeda banaanka soo dhigaysa haday qoorteeda inaad meel un banaanka soo dhigaysa mamnuuc social media dhankiisa wanaagsan ka isticmaala waxyaabaha soo kordhay waa social media ma jiri jirin waqtigeena ma jiri jirin hadda dhow 10 sano 2010 meelaha soo bilowday ilaa 2006 meelaha marka yaa loogu talagalay daayirta inay ku fasahaadaan meeqa guriga ku dunta isleedihiin gabadhi ayadoo ilmaha haysto reer le maxay tahay ninka TikTok ku dhex jirta ka bax uu ku kari waay reerkii ka dumay halka maxay tahay nin la'aan balaan ku noqdo ilmaheeda balaan ku noqdeen social media ha ku fidnoobina jirkiina ha soo dhigina quruxdiina qariya sidaas sharaf ku leedihiin yaa gabdho wali soo sidaas sharaf ku leedihiin ilaahayna ku jeclaanaya sidii nabi Muuse nabi Shucayb oo ilaahay gabadhaas nabi Muuse uu keenay nabi dhanaa guriga lagu soo galiyay sababtu maxay tahay xafiifnimadeedii dhowr sanaanteedii ilaahay wuxuu dhahay tamshiha ala istihya wuxuu ku amaanay xishood markii iimaanaysa iyadoo ka yaxyaxayso inay la hadasho haddana eedan u keentay sidaas Allah marka gabadha xishoodka iyo xayaaga iyo jamaalkeeda iyo quruxdeeda waa al-hijaab wal hayaa inaad is-asturto iyo inaad xishooto oo ragga afka aad la gelin markaasuu ninka ka ku dooranaya markaasuu gabadha qofkeedii ma alla qofaas qofkan waa qofkeegi mustaqbalka ka raba waa ilmeyga hooyadood Allah almar'atu saani'atu rijal hooyadu gabadhu waa mid ka samaysa ragga samaysaba tuka imaana waxa nin shaqeynaayo waxa nin orday waxa nin halgama intuu socda inuu adigu guursado u socda waa adigu biilo adigu dhaqdo wixii dhaqaale inta waxa lagu bixiyaa dumar iyo caruur lagu bixiyaa ma taan sama hadii guri u dhisiyo siina xaaskiisu siina sama hadii gaari uu gato yaa la socdo xaaskiisa haduu dhinta dhaxalkiisa yaa qaadana xaaskiis qofka loo shaqeynaa adiga marka adaa malika anti malika boqorada tahay boqornimada isaga ciyaar qofa qiimo lahayn ha noqonin qof maxay ahaato akhlaaq xumadeeda laga cararo oo xijaabkeedii asturaada inta ka tagto maxay ahaato qof lagu soo leexdo qof la jecel yahay qof la ixtiraamo qof wada aleela gurigaas qof wanaagsan joogo markaas Allah subhanahu wa ta'ala maxay ahaato qofkaadii ku keenaya hadda gabadha yar ayuu taatihin min al'aan cibaadada badsada istighfaarta badsada tasbiixda badsada salaatu leelku soo kaca tukada ilaahu rabbil alamin maalinta weynaado oo waalidka gacantiisa ka baxo maxay ahaato qof wanaagsan wax igu dar ida tazawaja rajulu
faqad istakmala fi nisfi diini falyattaqi Allah fi nisfi al-aakhir qofka hadduu guursaday noloshiisa bar way xalisantay marka kale ilaahay kaga cabsado guurka oo ku hagaago waa noloshaada qayb u xoogsanad oo ku hagaago sanadii dhawaad waxa batay burburka qoyska batay furiinka batay dayciga dhax ku dhacbartay marka maxay heeto aad iskuulka dhameysaan ama jaamacadda dhameysaan xirfada aad ku noolaataan sameeysta insha Allah taala taas mawduucan xirfad yar oo guriga ku noolaato oo nolosha aad ku qabsato maxay heeto caqabadaha ku soo wajahaya marka taasna waa mawduuc kale insha Allah taala waxaan soo gabagabeynayaa al-hijab jamaa sirrul jamaa حجابك وقروحده gabadha waa quruxdaada waa asturaada gabadha ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku waajibiyay ha ka tagin marka weynaato ama waalidka gacantiisa ka baxdo hadhiin in qof la soo caburiyo oo la soo canaado kale inta dharka ha dhar dhigan quruxdaada sidaana ku jirtaa Ilaahayna markaas uu kugu abaal mariyo qof wanaagsan inuu ku keeno wallahu subhanahu wa ta'ala